الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد لما أنت هلكن joogta taageerayaasha xisbiga meel walba jooga bulshada reer Soomaaliland iyo saxaafadaba waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxa la socoteen maanta in nalooga yeeray oo aniga gaar ahaan la iga yeeray gudoomiyaha xisbiga wadaniga xarunta CID-ga waxay ahayd runtii dhacdo cusub gudoomiyaha xisbiga oo looga yeeray dhacdo cusub ay ahayd laakiin anagoo sharciga dabaqayna oo ilaalinayna oo doonayna inaanu muujino inaanu sharciga ilaalinayno ayaanu tagnay aniga musharax madaxweynaha waxaanu booqanay goobtii xarunta CID-da waxaan halka kala kulnay saraakiishii oo ugu sareeyo taliyaha CID-da waxaana ay weydiiyeen su'aalo aanu arkay inaanay xaq laygu lahayn oo ay sharci darro tahay waxa kamid ah su'aalaha la weydiiyay maxaad saxaafadaydii hadalkaygu dambeeya saxaafada ka hadlay ayaa kamid ahaa waxay u muuqataa ha hadlina maxaa u hadasheen waxaanu saleenahay xisbiyaduna waa dimuqraadi dalkana dastuurka u damaanad qaaday haduu xisbi yahay hay'adu muwaadiniinta yahayba xorriyadda qolka u damaanad qaaday annaguna xisbi ahaan liisan baanu sidanaynaa hadalno waxay ahayd su'aalaha weydiiyeen maxaad u sheegtay madaxweynuhu inaanu shuruudihii dastuurka ku qoraa qaar kamid ah in calaamad su'aal saaran tahay waanu sheegay inaan aaminsanahay inuu haysto oo aan cadeynayo inuu haysto oo aan cadeynayo waanu sheegay iminkana waanu sheegaya arinta noocaasi waxay muujinaysaa runtii aga juglayn iyo in xisbiyada loo muujiyo xorriyadii ay u lahaayeen inay kaga hadlaan waxa qaldan in culays la saaro waxaana diiday xeerarka dalka iyo dastuurka way diideen xeerka xisbiyada iyo ururadu wuxuu tilmaamayaa inaan la caburin karin xisbiyada iyadoo guud ahaan marka hore dastuurku u damaanad qaaday su'aalaha ay weydiiyeen waxa kamid ahaa oo la yaab leh markan ka hadlayay maxaad u tiri waxa tiri sharci darro hayeelina dayimka baan ku leeyahay dastuurka sharci darro diiday wixii sharciga ka hor yimaada waa null and void waa sharci darro waxba kama jiraan ma waxaad ku dhiirigelinaysaan idinku in sharci darro la aqbalo muwaadiniinta Soomaaliland iminkaan ku celinaynaa waxay u hoggaansamayaan sharciga dastuurku wuxuu sharciga iyo dastuurka loo hoggaansamo iyo sharciyada islaamka laakiinse in sharci darro ay u hoggaan la yiraahdo aqbala waa koow oo la yiraahdo maxaa u tiraadaan sharci darro aqbalina sharci darrada aqbalina maxaa u tiraadeen su'aalo noocaasa oo muujinay marka dhamaantood la isku soo wada duubo oo muuqanayay in culays lagu saarayo xisbiyada inaanay ka hadal xukuumadda iyo dalba ay leedahay qaladada sharciga galayso iyo dalka siday u gelisay majiraa qaldan hadday sharci tahay ku tumatay hadday tahay siyaasad la hadhay hadday tahay horumar la hagaastay ayaa la diidayaa ha sheegina waanu sheegaynaa ku cabiitami mayno ma aqbalayno ha hadlina xaq baanu leenahay ninna nagu khasbi karo ninna nagu khasbi karaana ma jiro muwaadiniintuna waxay u leeyihiin xor maanta aanu hadlaynaa baritaanu hadlaynaa saada baanu hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa wixii sharcigu awood noo siiyay waxa u muuqata in aan mar labaadna ku celinaya waxa u muuqata in madaxweynuhu u isticmaalaya ciidamada hab siyaasadeed oo uu oranayo kii ila hadla u yeedha soo xidha su'aalo weydiiya su'aalaha ka baqamayna xaasha su'aal kasta waa la weydiin karaa ciidamada ammaanka iyo hay'adaha ammaanka waa loo hoggaansamayna adigu maalinta lagu yeedho u hoggaansami waayay waxaan xasuustaa shalay aan gurigiisa buuse ugu yimi iyadoo ciidamada ammaanka u yeedheen Muuse oo uu qoriyo u yeedhay oo 20 inoo qoriyo sita u yeedhay oo ay gaad ka hayaan annagu tii yeelimayno annagu sharcigaanu ilaalinayna wax sharci darraana ka yeelimayno madaxweynaha cid kala toona muwaadiniinta nimkan ku celinaya sharci darro cidna ha ka yeelina bulshada reer Soomaaliland baan u sheegaya waxaan leeyahay sharci darro cidna ha ka yeelina waxa muuqata inay dhibayso
xeerarkii iyo shuruucdii la leeyahay dabakha oo ay doonayaan inay sida doonayaan u socdaan war muuse waxaanu leenahay boqortooyo laguma dooran haddaad moodo in boqortooyo lagu doortay dalkan waa dal dimuqraadi ah boqortooyo laguma dooran boqor yiraahda yani waxaan hayga hadlina ayaynu maqli jiray inagu ma baynaan arage dalalka boqoradu haystaan baa ha ka hadlina la oran jiray mala muuse boqortooyo moodi boqortooyo ma dalka Soomaaliland waa dal xor oo dastuurka Soomaaliland ba u damaanad qaaday adigana maalmaha ku hadhay adiga doortay maalmihii ku harsanaa inaad buuq geliso annana buuqaanu kugu caawinay